si aad isku diiwaangelisid marka hore taabo sign up kadib geli emailkaaga geli passwordkaaga cusub xaqiiji passwordkaaga kadib taabo continue kadib geli nambarkaaga adigoo ka bilaabaya eber 6 waxa ku soo dhici doona 4 number OTP ah wuxuuna ku dhici doonaa taleefanka aad ku samaysatay e-wallet-ka kadib taabo continue si aad isku diiwaangelisid customer taabo finish sidaas waxaad ku samaysatay bulsho e-wallet si aad bulsho isku diiwaangelisid taabo calaamadda registration geli magacaaga geli telephone numberkaaga geli halka aad joogtid geli date-ka u sameey new password kadib taabo create account sidaas waxa kugu sameysmay bulsho sports account si aad isku xirtid waxa taabanaysa calaamadda buluuga ah dan wuxuu ku geynayaa nambarkii aad ku samaysatay e-wallet-ka geli eber 6 nambarka aad ku samaysatay dan wuxuu ku tusayaa macluumaadkaaga wuxuuna ku soo diri doonaa koodka wuxuuna ku dhici doonaa taleefanka aad ku samaysatay sidaas waxa iskugu xiran e-wallet-ka iyo bulsho sports e-wallet markaad soo kicisid waxaad arkaysaa icon-adan ku muuqda sida profile-ka transfer-ka recharge-ga iyo request-ga recharge-ga wuxuu ka turjumayaa inaad ka dalbatid agenciyada halka ku jiro listigooda request-gana wuxuu kuu suuragelinayaa inaad aragtid request-ga aad dirtay ee ahaa agensiga aad dirsatay transfer-ku wuxuu kuu suurtagelinayaa inaad lacag u dirtid qof customer ah oo asxaabtaada ka mid ah adigoo aadan ahayn agency waxa kale oo icon-adaada ka muuqda transaction wuxuu kuu suurtagelinayaa inaad aragtid lacagii aad dalbatay iyo lacagii lagu soo diray waxa kale oo kor ka muuqda lacagta balance-ga kugu jirto sidaad noo muuqato waxaa noogu jira lacag gaaraysa $1 taabo recharge waxaa ku soo bixi doona listiga agenciyada sidoo kale waxaad samayn kartaa adigoo kor ku qoraya searching agencyga aad rabtid ama aad la tahay macaamiil tusaale ahaan waxaan ku qoraynaa Salman waxaa noo soo baxay agency la yiraahdo Salman oo ka mid ah agenciyada waan ku dhufanay wuxuuna geeyay nambarkii agencyga dan waxaan gelinaynaa lacagta aan ugu baahannahay kadib ku dhufo request waxaana ku soo bixi doona inaad ku guuleysatay inaad lacag dalbatid si aad u heshid lacagta aad dalbatay la xiriir agencyga aad lacagtu ka dalbatay nambarkiisa halkaas ka muuqdo transferku waa adiga u diri kara lacag saaxiibkaaga adigoo aadan ahayn agency sida daraadeed waxaad gelinaysaa nambarka qofka rabtid inaad u dirtid kadib waxaad gelinaysaa lacagta sindi ayaa taabanaysaa request-gu wuxuu kuu suurtagelinayaa inaad aragtid cidaad lacag ka dalbatay ee ahaa agencyga transaction-ku waxa uu kuu suurtagelinayaa inaad ogaatid dhaqdhaqaaqa guud ee account-kaada cid lacag ku soo dirtay iyo cidaad u dirtay maadaama aan soo sharaxnay guud ahaan e-wallet-ka sida lacag loo soo dhigto cidda laga dalbado markaan waxaan sharxaynaa lacag e-wallet ku jirto sidee deposit ugu soo sameynaa bulsho sports isla markaana aan u samayn karnaa withdraw si aan ugu celino e-wallet-ka lacagta aan ka soo samaysanay deposit-ga marka hore waa inuu isku kaa xirnaadaa bulsho sports iyo e-wallet-kaada haddii uusan isku kaa xirneen fadlan taabo link e-wallet-ka
geli telephone numberka kugu samaysan e-walletka waxaa kuu soo dhici doona 4 number oo uu ku soo dhici doono numberka aad ku samaysatay e-walletka si aad lacag ugu dhigatid Bulsho Sports marka hore waxaad gelisaa qiimaha lacagta aad rabtid kadibna waxaad taabataa dhigid ama deposit hadba sida ay kugu qoran tahay waxaad ku guuleysatay inaad lacag dhigatid Bulsho waxayna ka jarmi doontaa e-walletkaada saad aragtid $1 ahead waxay noo noqotay 0.5 si aad lacag ugu baxdid Bulsho Sports waxaad taabanaysaa lacag la bixid adigoo gelinaya qiimaha lacagtaad u baahan tahay lacagtaada waxay ku kordhi doontaa e-walletkaada waad ku guuleysatay inaad kala baxdid Bulsho lacagta una wareejisid e-walletka sida aad ka aragtid balansigaaga e-walletka si aad u sarifatid balansigaaga waxaad isticmaali kartaa transfer adigoo gelinaya numberka agency-ga arabtid inuu kuu sarifo lacagta adigoo gelinaya numberkiisa iyo qiimaha kadib la xiriir agency-ga aad ka rabtid inuu lacag kuu sarifo mahadsanid